Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaashana qiimaha badan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa sidee Charles Lucky Luciano uu u habeeyay kooxihii isku hayay ee dunida hoose ee New York kana dhigay 5 qoys oo maafiyo oo waaweyn isaguna uu hoggaanka u qabsaday. Nin dadka barta taariikhda ay ku tilmaameen in uu yahay ama uu ahaa maskaxdii dhistay dambiyada abaabulan ee casriga ahaa ee Mareykanka. Faallo kooban isla markaana dheelitiran ayaan ku eegi doonaa, balse intaan u gudagalin marka hore muuqaalka like noo saar, la wadaag asxaabtaada, haddiise aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh. Gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. Magacaygu waa Hashim Adam, ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Hagaag haddii aan ku bilaabo, ninkii la oran jiray Charles Lucky Luciano ayaa awood u yeeshay in uu mideeyo kooxihii kala qaybsanaa ee dambiyada ka sameyn jiray magaalada New York ee dalka Mareykanka, isagoo oo u kala habeeyay 5 qoys oo maafiyo ah. Ugu dambeyn isagii noqday maskaxda iyo hoggaankii nidaamkaasi. Ku dhawaad 100 sano maafiyadu waxay ahayd qaybo kamid ah ama qayb kamid ah sheekooyinka iyo halyeeyada dambiyada ee Mareykanka. Ilaa iyo maanta magacyo ay kamid yihiin Al Capone iyo John Gotti weli waa magacyo caan ah oo dadka ka dhex gooxa inkastoo 10 sano laga joogo geeridooda. Hase yeeshee waxaa jira nin aan la dafiri karin in la'aantiisa maafiyadu aanay noqon lahayn ururka qaabka maanta loo yaqaan. Ninkaas waa Lucky Luciano. Dad badan oo taariikhda barta waxay ku tilmaamaan Luciano in uu yahay maskaxdii dhistay dambiyada abaabulan ee casriga ah ee Mareykanka. 1930yadii isagoo jooga New York ayuu dhisay qaab dhismeedkii maafiyada Mareykanka oo ilaa iyo imika raadkiisu u muuqdo. Luciano wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee waxa markii dambe loo yaqaano Genovese crime family. Sidoo kale wuxuu door weyn u ku lahaa sameynta gole hogaamineed oo maafiyadu ay leedahay oo la yiraahdo The Commission, kaas oo ilaa iyo maanta la sheegayo in uu saameyn ku leeyahay dunida dambiyada qarsoon. Tani waa sheekada dheer dhiiga iyo qalalaasaha leh ee Lucky Luciano, ninkii loo bixiyay aabaha maafiyada Mareykanka. noloshiisa hore ee qalalaasaha lahayd ee Lucky Luciano waxa uu ku dhashay tuulada Lercara Firdi ee jasiiradda Scilly. Taariikhdu marka ay ahayd 24 November 1897 markii uu jiray qiyaastii 10 sano. Isaga iyo qoyskiisu waxay ka haajireen silkii una guureen Mareykanka, iyagoo degay xaafadda Lower East Side oo markaas caan ku ahayd saboolnimo, ciriiri iyo dambiyo fara badan. Sida qurbo joog badan oo waqtigaas yimid, qoyska Luciano waxay ku noolaayeen guryo aad ciriiri u ah oo dad badani ay wada degan yihiin. Halkaas ayuu Luciano si tartiib ah uga dhaxmilmay dunida dambiyada. Markuu 14 sano jir ahaa, waxa lagu sheegay in uu ku lug lahaa boob, tuugo iyo baad. Isla da'daas ayuu guriga keenay qorigiisii ugu horeeyay, wuxuuna noqday jaabjare xirfadle ah. Qaybo kale oo weyn oo kamid ah safarkiisii dambiyada waxay bilaabatay markii uu ku biiray kooxdii caanka ahayd ee 5 Points Gang, halkaas oo uu ku bilaabay ganacsiga heroyonka. Buugga taariikh nololeedka ee Boardwalk Gangster isla markaana lagu magacaabo The Real Lucky Luciano oo uu qoray Tim Newark. Luciano ayaa laga soo xigtay isagoo leh, markii aan yaraa waxaan aad u taageeri jiray meelaha sigaarka opiumka lagu cabo ee Gintownka. Dhammaanteena waan tagi jirnay, waxay madaxayga ku sameyn jirtay wax yaab leh, laakiin weligeyga uma ogolaanin in ay ugu dhex liqdo. Xitaa isagoo aad u yar, Luciano wuxuu lahaa maskax ganacsade. Si uu magac ugu sameeyo dunida dambiyada, wuxuu go'aansaday in uu magaciisa ka dhigo mid Mareykanka u eg. Magaca Salvatore
waxaa mararka qaar loogu yeeri jiray Sally, taas oo uu arkay in ay u muuqato mid dumar loo isticmaalo. sidaas darteed wuxuu doortay magaca Charles. ugu dambeyn Luciania wuxuu isu bedelay Luciano, sidaas ayaan u dhashay Charles Luciano, nin isagu is sameeyay sida Luciano u dhisay kooxdiisa. dabcan ninka kaliya ma maamuli karo dunida dambiyada. Luciano wuxuu helay saaxiibo iyo shuraako awood badan leh. mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan wuxuu ahaa Meyer Lenz, oo markii dambe noqday maafiyo Yahuudi ah oo aad u caan baxay. Luciano iyo Lenz waxay isbarteen iyagoo dhalinyaro ah oo ku nool New York. waqtigaas dhalinyarada Talyaaniga badankoodu ma jecleen inay la shaqeeyaan kuwa Yahuuda ah. Luciano arintaasi si kale ayuu u arkay. markii hore wuxuu ka qaadi jiray lacag dhalinyarada Yahuuda ah si uu ugu ilaaliyo, laakiin markii isku dayay inuu cabsi geliyo Lenz ma suuragelin inuu dib u gurto. taasi waxay noqotay bilowgii saaxiibtinimo iyo iskaashi dheer. gabadha uu dhalay Lenz, Sandra Lenz lagu magacaabo, ayaa xasuus qarkeedii ku sheegtay in Luciano markii uu yiri wiilkaas yar ee Yahuuda ah aad buu iiga yaabiyay markii uu ugu istaagay anigoo wata koox adag. Luciano wuxuu si gaar ah u jeclaa Lenz sababtoo ah wuxuu ahaa nin xisaabta iyo khamaarka ku xeel dheer. markii dambe waxay sidoo kale la saaxiibeen Benjamin Baxi, waxayna wada sameeyeen koox la oran jiray Baxi and Meyer Mob. markii hore waxay ku shaqeyn jireen baad iyo ilaalin khasab ah, laakiin markii Mareykanku uu mamnuucay khamriga waxay u arkeen fursad weyn. iyagoo kaashanaya Arnold Rothstein iyo Frank Costello, Luciano wuxuu bilaabay in uu lacag aad u badan ka sameeyo khamriga sida qarsoodiga ah loo soo geliyo. sida Luciano uu ku helay naanaysta Lucky, inkastoo uu saaxiibo badan yeeshay, haddana Luciano wuxuu lahaa cadow badan. 17 Oktoobar 1929 kooxo ka soo horjeeday ayaa afduubtay Luciano, wayna garaaceen, waxayna dhowr jeer ku mudayeen mindiyaha barafka lagu jabiyo. kadib waxay ugu tageen inuu dhintay jasiiradda Staten Island, laakiin mucjiso ayay noqotay oo wuu badbaaday, inkastoo uu yeeshay nabaro wajiga ah iyo ilaa iyo qeybaha hoose. dad badan ayaa aaminsan in naanaysta Lucky ay ka timid dhacdadan dagaalkii maafiyada iyo kicitaanka Luciano. waqtigaas Luciano wuxuu ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha dambiyada ee New York, Joy Masaria. horaantii 1930yadii waxaa qarxay dagaal maafiya oo u dhaxeeya Masaria iyo nin kale oo cusub oo la oran jiray Salvatore Maranzano. Luciano iyo dhalinyaradii kale ee maafiyada waxay ka daaleen hogaamiyaasha waaweyn ee Talyaaniga, waxayna ahaayeen dad Ingiriis yar yaqaana, fikrado duug lehna wata, ganacsiyo kooban sameeya. Luciano wuxuu go'aansaday in Masaria la kharijiyo. wuxuu qorsheeyay casho ka dhacday Coney Island oo ka dhacday maqaayad la oran jiray Novia Villa Tomaro. intii cuntada socotay ayuu Luciano sheegay in uu musqusha aadayo. daqiiqad kadib 4 nin oo saaxiibadiis ah oo ay ka mid ahaayeen Baxi Siegel, Vito Genovese, Alberta Anastasia ayaa gudaha soo galay, waxayna toogteen Masaria. sida Luciano u bedelay maafiyada. markii dambe Luciano wuxuu bartilmaamsaday Maranzano, ninkii isku magacaabay Boss of All Bosses. Luciano wuxuu diray 4 maafiyo Yahuudi ah oo uu keenay Lenz, waxayna si degdeg ah u dileen Maranzano. sanadii 1931 Luciano wuxuu noqday ninka ugu awoodda badan dunida dambiyada ee New York, laakiin wuxuu ku daalay dhiig daata oo joogta ah. isagoo kaashanaya Lenz wuxuu go'aansaday in maafiyada laga dhigo ganacsi nidaamsan halkii ay ka ahaan lahayd kooxo dagaalamaya. wuxuuna qabtay kulan weyn oo isugu yimaadeen hogaamiyaasha dambiyada Talyaaniga ee Mareykanka oo ka dhacay Chicago. kulankaas waxaa ka qayb galay xitaa Al Capone. halkaas ayaa Luciano ku sameeyay nidaam cusub. maafiyada waxaa loo qaybiyay qoysas. qoys kasta wuxuu maamulaa dhulkiisa. waxaa la sameeyay xeerar ganacsi. waxaa sidoo kale la sameeyay xeerka Omerta
taas oo ah aamusnaan buuxda oo ku saabsan howlaha maafiyada. Dusha sare waxaa ka jiray gole lagu magacaabo The Commission kaas oo xalliya khilaafaadka. Nidaamkan ayaa ka dhigay maafiyada mid nidaamsan oo qarsoon. Markii sharcigu uu qabtay Luciano, inkastoo uu aad ugu guuleystay, haddana dowladda Mareykanka waxay si dhow ula socotay Luciano isagoo nolol raaxo leh ku noolaa, dhar qaali ah, haween badan, saaxiibtinimo la leh Frank Sinatra iyo hoy ku yaala Waldorf, Austria. Ugu dambeyn 1935 dacwad oogaha caanka ah ee Thomas E. Dewey ayaa ku soo oogay dacwad ku saabsan shabakad tumasho camal ah. Damaanadiisii waxaa laga dhigay $350,000 Mareykanka, taas oo maanta u dhiganta ku dhawaad $6 milyan. Maxkamaddu waxay ku heshay 62 dembi, waxaana lagu xukumay 30 sano oo xabsi ah. Operation Underworld iyo dagaalkii labaad. Inkastoo uu xabsiga ku jiray, Luciano weli wuxuu maamulayay howlihiisa. Markii dagaalkii labaad ee dunida uu qarxay, Mareykanka wuxuu ka baqay in dekedaha bari ee lagu sameeyo sabotage. Dowladda Mareykanka waxay caawimo ka dalbatay Luciano. Ciidanka badda ayaa ka codsaday inuu ka caawiyo sirdoonka howlgal la yiraahdo Operation Underworld. Luciano wuxuu noqday indhaha iyo dhegaha ee ciidamada badda. Masaafurintiisii iyo geeridiisii 1946. Isla Thomas Dewey, ninkii xabsiga dhigay, ayaa siiyay cafis sababtoo ah adeegiisa dagaalka, laakiin dowladda Mareykanka ma ogolaanin in uu sii joogo dalka. Waxaa loo musaafuriyay Italy ama Talyaaniga. Markii dambe wuxuu isku dayay inuu u guuro Havana, laakiin dowladda Cuba ayaa dib u soo celisay. Luciano wuxuu ku noolaa Naples, halkaas oo uu kula noolaa haweeney la oran jiray Ija Lisani ilaa iyo 1952 ay u geeriyootay kansarka naasa. Luciano weligiis caruur ma yeelanin, wuxuuna mar yiri, ma aanan rabin wiilkayga inuu ku noolaado isagoo leh wiilkii Luciano gangsterka ahaa. Inkastoo la musaafuriyay, haddana wuxuu sii waday howlaha dambiyada ilaa iyo uu wadna istaag ugu dhintay 26 January 1962. Geeridiisu waxay timid wax ka yar inta aan booliska Talyaaniga ama xirin ganacsiga daroogada. Meedkiisa ayaana dib loogu celiyay Mareykanka, waxaana lagu aasay qabuuraha John Cemetery. Kumanaan qof ayaa ka qayb galay aaskiisa. Dad xiiseeya ninka la sheegay in uu qabkii maafiyada dhisay. Maanta qof kasta oo xiiseeya taariikhda maafiyada wuxuu booqan karaa qabriga Lucky Luciano ee Queens. Halkaas ayaan ku soo koobaynaa. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like noo saar oo la wadaag asxaabtaada. Fikirkaagana qaybta hoose noogu reeb. Tan iyo inta aan tabinteena xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano Allah.